السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأراديو تماديره أو هل كان ذي كلا هل يوبرتو إنترنت كلية تماديره.com أديات بندي السلامية هل كان إنترنت كلية يا وحلا يجا صدرك وانوين وعيقلين سؤاله المركب حن سكودية إن الله بصدق كسوقته سؤالي اللي سويتي sida ay aniga aqliga fikirkayga ila tahay iyun baan uga jawaabaya idinkuna sida idin la tahay u baa uga jawaabi doontaa su'aasha ugu horeysa waxay soo weydiiyay Xasan Fadaad ninkaas aad ugu xidhay barnaamijka waa inta afarta qof ee kanaalkayga daawada Xasan Fadaad wuxuu isoo weydiiyay wuxuu yiri maxaad ka qabtaa buuri toolkayaasha Soomaalida toolkayaasha وترجمانada uga jeeda turjumaanada Soomaalida okay turjumaanada Soomaalidu waxaan qabaa anigu horta turjumaanadu waxay ka jiraan wadamada qaar Yurubta kama wada jiraan imanka Ingiriiska oo kale ee wadanka weyna ballaaran qof kasta ba fartiisa xabuu tuuranaya waqti aan tagay turjumaan xal kama yaqaan laakiin inta Scandinavian ka meelaha iska yar ladan dadka turjumaan baa loo qabtaa marka taas baan malaynaynay uu ka wada oo Yurub oo dhan maaha turjumaanadu waxa weeyaan dadka Soomaalida ah marka wax laga qaadayo ama laga qaadayo iskuulada halkan waxay leedahay qofku waxbuu inbuu cabiri karaa inbuu qaban karaa maskaxdiisu inbuu recording samayn kartaa qof waliba intuu waxa la yiraahdaa intuu akhriyay uu samayn karaa marka Soomaalida oo dhan baa waxa qabta imika marka taxamada iskuulada qaar kood laga qaadayo wadamadan aan joogno Yurub way leedahay waxa leeyahay qof barintu isboorayn karo maskaxdiisu qaban karto hadalkii ayaa lagu soo bandhigay waxa lagu leeyahay markaas maxay heeday lambar oo kale 5 bal dadka macallinka wax ku leeyahay iga dabadhe marka qof bartan ku geynaya qof uu dhameynaya marka xasuusta bilaadanka ku xidhanta marka siiba waxaan u malaynayaa horta toolkayaasha Soomaalidu way fiican yihiin dad badan bay u turjumaan oo ay wuxuu waade wax ka qaldanaa ama waxaan ogeyn u sheegan farmakoonyo sheegan laakiin Soomaalidu qaybtaas way ku yar tahay marar badan baan arkaan uu toolkayaasha Soomaalida berigaan wadankaymi baa annagoo dhalinyaro iskuul dhigana ayaa nin loogu yeeray caruur dhalinyaro ay wadanka joogto baa inta waxa game isu diray wax badan baan fahmaynaa marka iskuul kalena lagu bedelayay qaar baa khataraba marka laakiin uu isku dhex jiraan oo toolka loo dhaqto markaas gabadhi baa macallimadii baa waxay iskuulskuna dad aad u bartay marka lecture bay jeedinaysa kelmad oran isagana ma oran iigu celi ma oranay uu dhageystay waxay tiri iskuulkan baa la idinka bedelay iskuulkaas la idin geenaya kaararka waqtiga haday gaaro way idinka dhacayaan 25 bisha bilaabaysaan cuntada halkaas ku leediin cuntada iskuulka ka qoonto koona sidii kan oo kale kuma dhaxtaale koonaasay ku tala sheeka dheer oo information dhamashay sida intuu u dhageystay buu xasuustay ninkaas kelmadii u dambeysay afkeeda ka soo baxday buu xasuustay wuu fahmayaa ma fahmi inaanu fahmin ilaahay bog laakiin anigu markan maskaxdayda xasuustay waxa sinka soo fahmay laakiin xasuustii uu recordingkiisa waxyaabo lagu kaba jiray gadaal baan ka sheegi doona wuxuu buu yiri kaarka hadii waqtiga iskuulka markuu dhaafo oo tareemada raacnaan iskuul faaganka meelaha raacdaan toogaga waa la idin ganaaxay intaas waxa kale oo dhacday beri kale gabadh Soomaaliyeed ayaa dadkan waaweynaba bantagas ka halkan la yiraahdo qabsin baa la yiraahdo waa laga qalayaa caynkaasna waa maybe dabatana uu lecture level loo jeediyay wixii baa loo sheegay wixii dadana wuxuu buu qalliinku maxsuus waa lagu qalay wadnaha laga qalay islaantii iskuul sudisay anigu wadna xanuun marihi ama istahadlaysa maxaa kale Khadiija masatiri waxa la yiraahdo wallahi wadni baa laga qalay wadna xanuun baa lahayn laakiin hadda waa xanuunaya qofku buuba والله يا وحنا بالله ما هي سنة تك تلفونك بان كله فتن radio تبى ده روح ما يقنا كم بان قلت هلو
gabadha heblaye leeyahay lambarkeed caanka bushu nambarkeed caanka ama ID cardkeed caanka yahay goorma qalliinka u diyaarisay markaas uu yiri qalliin benta ila wax way qoran wax kasta way qoran dadkan saani u ilaa wuxuu qalliin ma jiro maybe dawooyin baan siinana laakiin maybe inaan qalal laga yaabo marka ma xagoorma wadnaha laga qabso wadnahan iyo xigsiga waa maxay war waa pandagas qabsin yar baa laga qalay waxa laga yaabaa in laser waliba aan qalliin noqon la mudo laser lagu wariyay tolkayaasha wariya ilaahi beri kale waxa dhacday dhalinyaro caruur yar Soomaaliyeed oo beriga daadku soconayay baan hayay caruurtii baa caruur loo siiyeen waxaan ku afka baranay marka tolkan loo qabtay marka halkan loo qabtay baa la ninkan inankii baa la sheegay inankani waxa uu suuqa ma imaadaba ma yimaadaba laakiin markay taxamada laga qaaday sheeko dheero historygiisa waxa weeyaan caruurta marka sanadkiiba marka waxaan loo qabto history dheer baa looga sheekeeyo marka ay isagana waa fahmay laakiin de toolku aanu qaliye ceesh toolka ma la qabana ha qabta ninkan uu shaqaysanaa wani Soomaali ma xaga gal uu ka maxaa oranayaa ma rabo ha shaqaysto wixiisa ka dhacsay dawladda training ku xidhin marka waxay tiri gabadhii gramatigiisu aad buu fiican yahay waa qof cajiiba maskax baa saaran ma wadamo kale soo maray meelahan way isu dhowdahay marka Holland iyo Jarmalka iyo meelahan uu soo maray way isu yara kelmado badan oo iska isticmaalaan baa jira ama qofka German ama yaqaana Faransiiska yaqaana Swedish markuu yimaado ama Denmark yimaado wax badan kuma qaadato wax badan uu soo akhri marka qofka way dareen markaas wuxuu xasuustay inuu meel kala soo maray ninkii dhibciisa laga sheegay eega ku baxay iskuulkii ugu fiicnaa dugsiga sare u galay marka ugu fiicnaa waana yaabay kii raaba qosolka ka kac war tolkayaasha Soomaalidu war mid ma yaqaan xasuus ma leeyahay yaydin cadilin iska hobsada war iska hobsada tolkayaasha Soomaaliyeed halkaas baan ka baxaya taasi tolkayaasha dad wax bartay baa tiinay marka waxa weeyaan waxa kulli kaaran baysitaan badana iskuulay ka soo baxaan laakiin qaybta way ka dhimatay way fahmayaan afka way fahmayaan laakiin xasuustan recording ay qofka Swedishki ma oranayo kelmad laakiin hadda tiraahdo stop iyara kaadi marka waxa idin sheegay dadkiina waa weyn war Swedishkuna way idin helayna taga meelaha oo waxa tidaahan istana venta isugde wait wasoo duudo ku cili marka qofku ku bandhigayo wuxuu leeyahay qofkan waa qof doonaya inuu wax barto waa ku interaseereynaya sida ugu balbalaaran buu ku sheegay inta iyadoo bandhiga saga qalay wadna laga qalay talabaad iska hoosta niman kale qalad bay tolkeeya halkaas waa tolkayaasha kaga baxay waa wixii jira waa la waa radio 15 radio timadar wixii bulshada sameeyay la soo saaray in laga soo weydiiyay bulshada soo weydiisay aniga ma okay su'aasha labaad okay dadka Soomaalida hablaha iyo ragga markay wax bartaan maxay isla walwalaan ay dadkooda u nacaanay yiraahdaan shit waxaan ma yaqaanaan ilaa caraaw tagaan inuu dacaadeeyaan yiraahdaan Soomaalidu waa sida imka corona iyo kale waa la noo tuuray waxa la yiri dadka Soomaalida qof ka magaciisa ma garanay laakiin qof baa yiri boqol bay wada hurdaan guriyaha sidan bay yihiin markaas waxa weeyaan anagu haddaan ay radio timadheer arrinta wada galeynaa haddii la soo ogaado oo dawladda Sweden ay cadayso tiraha Soomaalida ugu badan baa ku dhimatay Sweden maxkamadda la koray aniga iyo timadheer kaygu maxkamadda Sweden la korayna cid kasta walo video-ga si weydaariye hadda statistics man sameeyay meelo badan baa la xiriiray meelo badan bal haday dhimashada Soomaalidu badato Sweden waxa la isla dhexmaray qof qadartaa wax ku leeyahay monga Soomaaliska Soomaalidu waa for marka saan ku leedahay bifis ma haysa anigu qofka inta dhaxal kurti xunu gariiraya miyaa bifis haysa halka ku dhintay ma jiclin anigu meeshan ka soo sheekh baa bari wuxuu yiri aan ka yara dhaxgalay qofka gaalka diintiisa raacay hadda diintiisa ciidaad ma kaagu caay war aniga ninka yaacay ilaa Soomaali waa dulida adigu wadankaaga duliyaan le laakiin Soomaalidu maxaa ku dhacay si lagu caaya anigu intaan ka gala gabigiisa mid baan la kacayo shaarka ku baqtimaan loo inturi Soomaalidu waa tiya bon kaaga cun baan ku leexgata keen cadaynta keen wasiirka hadlay keen laakiin arintaas hadii ay dhacdo bil xaqiiqatan marka daba soo galay diisha haday dhacdo oo Soomaalidu ay u badato waayo dad badan laga dhigto Facebook ka kartaan haday u badato su'aasha waa inuu weydiinaa sanad walba waxaan soo saarnaa
sanad walba xildhibaanna soo saarna sanad walba golaha deegaanka la ku soo biira xaggay joogaan waay ay u dhinteen dadka war qof dhinta la isku qabsadaa sidee la inoogu xuxiyaa la yiraahdo Soomaali ismay bambaaneen dawladda waddankan ma deganahay Suudaan la yiraahdo ma deganahay mise ma degan ma dhagxaan baynuna dadkeenu soo u dhintaan dawladda waa inaynu waraaqaha dib ugu celinaa oo aynu nidhaana dadka yagii dhimashada iyaga u badnaay baarfar maxay u dhinteen guriga ciliyay degaynta kama saarayso guriga maxaa loo siin weydin dadka ma maqasaan dadka idinka boolisku magaalada wasiirka adiga adnaga wasiir noo tahay dadkaadu tahay haddaad leedahay discriminating anu wateen heestii aan u tud la qaadayna waxay ahayd koroonuhu waa racist waa in madowgu garaacay gobol meel kasta madowgu ku garaacay laakiin waa la iska madowgad waddanka ku nool waxay dawladda waa farsan xilli dadku maxay u dhinteen war halkan aad ka leedihiin Soomaali badan baa dhimatay lokaalkii baa furna masaajidkii baa furna dawladdu waa inay xidhaa waa inay tirahaa ajaanibkaasi may maqal baa la dhigay wacyigelintii askar u dira waa inay xidhaa waa in guryaha la yimaada waa in layna badbaadiyaan si laynoo badbaadiyo taas waa inaynu ku qabsanaa Soomaali way dhimatay oo dadkii ugu dhinaa xabaalaha galay weeyi ma aqbalayaan iyaga raad iyo tima dheereey groupkiisa dawladda waan kula xisaabtamaynaa statistics hadduu soo baxo بالحقيقة أنا تصوب حول السويدن ضد كوجو بدنا لتوا Soomaali يعني الدولة أما مقوى بحنيسة أما وحبي بدلسة أما حافظها نتجني نجرس هدي كله ونوترينا ويا ودن كم وحدك منهم ضد كوا لوسي من السويدن ولا عرب ولا كرد ولا سويد سبب شرع وساس ونوشة ما كسر مو لمنا سبب هذا اسم بنوي نو ما صعيس ما يقبلنا أوكي سؤال وان كل رضال كان كقبح وان كحناقي سؤال استدح مريو هذا كان دام صوير مقصوى وحبي طبق الصومالي مركب حبرتان حيث طوال ولا أنا أدوك وها الكاس شيء كلام كاي أو أن ويش كتشتي يدان قدر كم باي بيده تمرك الصومالي بحيث طوال ولا مركب بحيث طوال ولا أنت بدن ما كان أيامه لكن واحد يدين شيء يوم رجعنا الصومالي ده قبلها الصومالي ده وحبرتين جامعة دامها إفا كوبح لما ديه كوبح الجامعات هالشو كان سنين waayo inaan saaxiibane waxa ka soo maray mood ina soo qaal psychology-ga dhigata qaybtan maskaxda ee dadka waalay xaas ayeenan baa la sheekaystay dadkeena Soomaaliyeed iska dhalinyarada qofka dhalinyarada ee Soomaaliya suu gabadho la sheekaystaa de si caadi normal ilaa waxa la kala qoranayaa ma ogid wixii soo qoraysaa afka way maskaxiya isagii bay ka dhaxbaatay psychology markaas ay tiri isku wallahi inuu shaqadii waan ku daalo maanta habeenkii dabada kulmano la shaqadii waan ku daalo wax isleeyahay adoo iska bartay waxaan تنكر بلوك ما أنت بقول وحنا سلاي هاي كوري عند الجنابة لحد سوار الضغطاء أنت هو يدا سكرتكتو سنة أنت تشقى ستة عكس مرة أنا وقرتها هذا إني كتبوا لي والله كان أحسب على صوت أفريقيا يبقى على رشة وحسين دكان ما كسفرتي دول أبو دسكين شيكوي نوع عاصم كشك ما تبي يرجع دكتور متى شكور مايا حنا اخترت ما كان مصطوم أتذكر مركز سيتري دوت ولا حدا وراء بسيدة هذا ما أنت شان يلا تنكد بيش كون كودي بركي ساعة مركز هاد لبيه لا تن هالك مركز فرنسا صاد قدر بعد وقت اخترك محي هذا سنسمين ما أنت بيش شان تي شان ينتص وقريسة وحكس واحد قلت لي تايتا ما أنت عينك صاد قدر ما أنت عينك صاد قدر إيه ولا أنت أبتكت النال إيرانكي بلانيرنكي جورك كل يار جروبي وعرا أنت عليه وارجع عدد يوحي ذا إسكاسته وجوي النيو رجع جروب كيجاز ورجع تو أنت جامعة هي إذا هبلا نساسو كله نين كتو جامعة دكتور ومو جامعة كصوب حياة مو وعرتو وتذكر متشوفنو جامعة تكو كود بحين واسكو إسك عادي لكن نجوا إنتاي إذا هبلا هنا محلية كوب مركز كرو قاطع وحنا بكرة دنا وشت رسيس والله ما عرفت لكنه إكسبليش كبحيني بيها فلتريشن واحد قاطع وجوية كوا ها وجوية ما ندمو جويساني هالك سؤال شان تكفحه سؤال شكل حويا اللهم صل على محمد سؤال شكل حويا حطانك يحوك هذا يا كان عوان كدع يعني حطانك أي يوم ما كورنا وحلرينين شكان كشكانين marka wadanka madan qurbaha la yimaado dhammaan qurbaha qofka ka soo horeeya weel talk wax qalad ku sheegaya qofka mid la yiraahdo siiro ciyaal iska dhigno weel la ciyaal iska dhig
dadka qaar baa la yidhi waa liisku dhiiba dadka qaar baa la yidhi wax kala sheegta qofku wuxuun buu kuu sheegaya in farmaquunada waxbaa la isu sheegaa mogta marka waxaa dhacday in baa la yidhi wareedhe meeshan sharci waadagii wax kala xooga ma soo qaaday iswaa oo daynan ma arwaa iska waalantahay arwaan waalanay iska de sharci malagu helaya waalidus qorayo waa la eegayo markaa dee waalidii baa kala darajirtaa waali yaro iska dhexdhexaada waali yaro iska dhexdhexaada baa u qaatay oo dee waa la yara arko qaar maaragtay dadkan iska dee masaakiinta iska ayaa lagula xareeyay meel halkaas iska joogaan oo subaxiina waa lasoo ururijiya markay qoraxda tahay oo halkaas iska cunaan ubsarre iska helaan sharcigiina waxay dee sharcigi iyo xasna waxa la yidhi oo maskaxdooda soo jeeda sharciga ka hadlaysa oo kale waa lagu siinaya ninkii sharciga la sii bixiyo halkiiyo isagoo meel ka baxaa ayaa markaa dee wuxuu la xaraysan yahay dee hablo ku yaro dhuftay inaan istaraysan markaa maalintii dambe ayaa mid dee ragguna waa kala dumarka ku kala xuyimid dumarkaba aragba soomaalida haddaynu nahay rag iyo dumarna caddaanka ninka caddaanka gala gabadho islaamada ka sakaaro markaas qoraysaa hebel in gabadh caddaanu qabaa carruur caddaanu leeyahay hadduu leeyahay watamiista muxuu leeyahay maxaa ka micnaa ama islaamada seelmer wado ilmahaygan hooya oo ku faanaya dadka kale soomaalidana imika laba dumar ay guursadaan imika odhanayaan marka kii baa arkay markaa isagoo iyagoo la gacan dee qaadaya inantii oo dayaro dhish dhaqaaqsanaya isagii oo isna iska haaf dhish dhaqaaqade oo gacan isla qaadayo meel la soo mariyay oo qaaroo dee iska soconayaan dee ciidan aad normal ilaalinayn laakiin dee oo iska teedee lidi soo dalxiiso meel iska maray marka suugi ariya hadda dhunta asugu soo gari hadda dhunta suugi waa naga joogniyo hadda soo gari suugi waa niyo tan saado hesho suugi waa loo soo waashade waa loo soo waasha marka waxaan diga tagaya wax kasta ciyaar laguma hele dee idinkuna naclabida ku yaalle waa loo soo waasha waan arrimahan isku caddaankan iyo waxaana ka sheekaynaysan garanaya aad baan idiin salaamaya waa radio tima dheere oo su-aaluhu way fara badan yihiin aad iyo aad bay u fara badan yihiin aad iyo aad bay u fara badan yihiin su-aalahani intaa kaga tegaya arrimaha bulshada waxyaabaha su-aalaha yar laga soo dhex qabto ayaan doonaya in la wadaago qodobka koobaadan meesha usoo gelay waxa weeyaan please and bitfadlan kilibkaygaa ninka arko gaarsiiya nimanka dawladda u shaqeeya kuwa aynu maalin walba doorno intee gole deegaan bay leeyihiin baarlamaanka laynoo fadhiya ninka yidhaaha Soomaali baa u badan ee soo xaqiijiyo wala soo qoray wala soo xadaynu badanno war dhamaanteen radio tima dheer ay kala qayb galay dhamaanteen waa inaynu dawladda iyo maxkamadaha soo taagnaa waa inaynu dawladda maxkamadaha soo taagnaa why Leila Chester u dhimatay why ayeeyo u dhimatay why babescake u dhintay why waa inaynu nidhahnaa excuse ma aan noqonayso excuse ma noqonayso inuu kurdi yahay ama carabi inta kaga sabray Soomaali oo badan oo anaa kala ku waqti cid la ka dhinto dadkan waxa sida u dhinteen imika Mareykan Louisiana Chicago goboladii aan u badnayn oo madooba ku dhintay hadda maxkamadda la isku jira markii excuse bay ka bixiyeen gabanadii raggi gabanka gudoomiyayaashii waxay dhahan waanu ka xunnahay laakiin Sudan kamay bixin raali gelin kamay bixin inaguna waan iskula wareegnaa wallahi Soomaali baa dhimatay hanaalo war Soomaali baa dhimatay ma soconayso waa in dawladda lagu xisaabtamaan ma iyo arrintan mootan sameynaya insha Allah bil malaa'ik kariim waan yiisoo cayimi doona waqtiga rag badan oo qoyahana ku soo casuumaya hablaan psychology-ga bartay nabada taxamada ka qalan ku soo casuumaya arrinta waa inaynu ka gilgilanaa haday dadkeena ciyaar ku dhinteen oo ay wax bay sagaalbaad ku degan sagaal ugu degan sidaan ugu degan iyagu ay bay haystaan maxay noogu iman weyday farmaquuka ma fahansanay kulli maxay ugu iman waayay dadkan iyaga ka mas'uul hadii kale wallahi baasaboorada Holland baa mar laga dareeray oo intay dadku xumaysay baasaboorada wadada loogu daagay wadada inuu ku saadinayna hadii arrinta wasiir dambe horta warka bariyaha wanaagayo uma doonay war qalad inaan ii sheega hadii wasiirada Soomaali baa u badan gurigiisaan ugu tagay anigu meeshan oo dimuqraadiya ciidanka cilmisan oo kamaradaha iyo qalabkiisa sita والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراديو تيما ديرة أويلي والبالكليب كان قدب كاي أنا مسكح ذي قدب كسوة إلى مهيني وبالسوش شيء إلى الله حساب تنادت كان دولة تريدت كيني بعد طيب ميراها كهر ليه تد كان استدح وريجي وربيانا إذا الله عهين إن تد كان الله حساب تنادت كي بسوي بنتين نيكا وحبرتاو يسومالي بعد هاي أما وحبرامي إسكتة ولا هنا نبين دي شدينا فورتاو هايستا dadkeena Soomaalida aanu yoobeydiinta ma garanayo nin baan u cumsanayna ka shaqaaleysay shaqaale u baahan yahay meel yar ka shaqeysan shaqeey kulaha markuu iimanay waa inaan af Soomaaligu ma ceeba ma dambiba
ما حاف سومالي قوة بقف سومالي قوة إما كأنه خفيف بعمل بوسنيا كي مرة سرت أنا كبوسنيا كاف أفكر يقول هذا يا أوران كراف كان محضرات what the hell is this going on سومالي كنا ما وربها كان ورنجت يلا صلى عليه مرة واحد دور سنة كاميرا تشبيو هذه هذا بندي سامي والراديو تيم الراديو ورقودم كاسوا مهم وإن نسجني معنا وإسكارسية كليب كي قاعد تركتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والراديو تيم الراديو كجت تجيه وانقر لها تلو هدي غرفة